boqolaal cod oo qurxoon oo ay shimbiruhu ku codsanayaan inay dhegaystaan xigmadaha aan kuu soo wada ayaan maqlayaa. sidoo kale gooha libaaxa iyo banaaxiga lo'da ayaan maqlaa. sagaaraduna meel aan iga fogeyn ayay ka madaaraysaa. dhammaan codadkaas oo idil waxaan ka doorbidayaa sida qurxoon ee aad ii dhegaysanayso. waa xirmo xigmado ah oo aan ka soo xulay xis iyo maan xeeldheeri koobsaday ee igula raaxayso. ha u xaqirin nafsadaada dadka kale. adigu qalad ma lihid, iyagaa doortay inay kuu fahmaan qalad. keliya uga tag aamusnaan, maalmaha ayaa ugu filan inay kuwaana qaataan kuna gartaan qofkaad ahayd iyo qofka aad tahay hadda. mararka qaarkood waxaa waajib kugu ah inaad tijaabiso wakhtiyada culus ee nolosha si aad u ogaato intay xamili karta awooddaada. maalin walba uu baryo waa cusubi, waxaa kordha da' iyo duruus nololeed. labadaasina waxay naga dhigaan kuwo u soo jooga waayo kala duwan. sabankani daryeelidda xaddhaafka ah ee aad daryeesho dadka waxaad ku weynaysaa sharaftaada. waad awooddaa inaad mas-uul ka noqoto waxa aad samaynayso, balse marnaba ma suurtagelayso inaad mas-uul ka noqoto waxa aad dareemayso. ee si fiican uga digtoonow waxa aad samaynaysid, waayo waxay saamayn ku yeelan doontaa waxa aad dareemi doontid hadhow. waxaa jira qof aad ixtiraamayso, maxaa yeelay waa qof ixtiraaman. sidoo kale waxaa jira qof kale oo aad ixtiraamayso, maxaa yeelay adiga ayaa ah qof ixtiraaman. haddaba ixtiraamka aad dadka ixtiraamayso micnaheedu ma ahan inaad iyaga u baahan tahay, ee taasi waa akhlaaqdaada xitaa haddaynan mudnayn. haddii uu allah kula jiro maxaa dushaada ahaaday? haddiise ay dushaada ahaadeen yaa kula jiro? haddaadse heshay jacaylka allaah maxaad weysay? haddaadse weysay jacaylka allaah maxaad heshay? hadduu allah subxaanahu wa tacaala ku jeclaadase wuxuu kugu manaysan xigmad. qofkii la yimaada xigmad wuxuu la yimaada khayr fara badan. qof tabar daran ha isku dayin inaad dhoola tustid awooddaada iyo farxaddaada. qofka murugaysan ka ilaali arrimaha oo kale, una tixgeli dareenkiisa sida aad jeceshahay in kaagaba loo tixgeliyo. ha akhrisan sheekooyinka guusha, waxaad ka heli doontaa fariin keliya. ee akhrisan sheekooyinka guuldarrada, waxaad heli doontaa fikrad aad ku guulaysatee. haddaba farxaddu micnaheedu ma ahan inaad ku noolaato nolol dhammaystiran, laakiin waxay macno u tahay inaad go'aansato inaad ka daboolato araggaaga waxyaabaha liita, aadna ku qanacdo waxa aad haysato. naqdinta ama dhaleecaynta joogtada ah macaanka shayga ayay dishaa. sidaa darteed geedka haddii dabaylo ku soo noqnoqdaan, caleemaha iyo midhaha ayay ka daadiyaan ilaa uu eber noqdo. waa sidaasoo kale qofka haddii dhaleecaynta laga badiyo wuxuu noqdaa qof qalafsan. haddaba dadka wanaaggooda ku ammaana oo qaladyadoodana iska cafiya. hadalka wanaagsanna waa sida furayaasha oo kale, afaf ayaa lagu xiraa, qalbiyana waa lagu furaa. haddaad dhista ciidan 100 libaaxa, hoggaamiyahooduna uu yahay ey, dagaal kasta libaaxyadu waxay u dhimanayaan sida eyga. haddiise aad dhista ciidan 100 ey ah, hoggaankooduna uu yahay libaax, dhammaan eydu waxay dirirayaan qaabka libaaxa. guusha iyo guuldarradu waa 2 qaybood oo ka mida nolosha, balse labaduba ma aha joogto. indheergaradku waxa uu isku ekaysiin karaa maangaab, laakiin maangaabku iskama dhigi karo indheergarad.